amniga taliyii iga horeeyay asagoo ku sugaya amniga caasimadan oo Basra ku dhintay in zero dhimashadii uu ku dhintay in laga soo bilaabo ee 2022 loo celsho ee qaraxa uu soo laabta la rabo in kama yeelayno guryihiinnan ku imaanayna gacmahana waan ka qabanaynaa mar amniga qof siyaasaday kara ma jiro wixii siyaasada meesha in ka jirto iyo carrada in ka jirta la aada laakiin ammaanka caasimadan iyo dadkan iyo dalkan inaad u celidaan inuu inta controlku laba qaraxi soo laaba jiro inuu qarxo ee Maka al-Mukarrama sidii la rabay inuu sidii uu qarxi jirtay inuu qarxada arabtiin idin kama yeelayna gacmo wiilal baa u dhintay kuwa qabuura u jifa ammaanka lamana siyaasaday karo lamana gorgortana laga magalayo kuwa hadlaaya iyo kuwa ka dambeeya waxaan leenahay amniga hanugu imaanina ammaanka hay'adaha ammaanka mas'uulka ah qof kasta oo isku daya inagoo wada jirnaan qof kasta oo isku daya inuu ammaanka wax u dhiba gacan adag ku qabanayna inta sidii u taxsiyenayseen maalin kasta miyaad u cisteen ree amni iyo kala dambeyn siyaasadda annaga nama qusaysa laakiin ammaanka qof kasta oo kamida ha yaraada ha weynaado qof kasta oo amniga iyo xasiloonida caasimadan iyo dalkan wax u dhibayo waa qaa'in wadan ammaanku maahan siyaasad ammaanku waa nolosha qof kasta oo muwaadina hooyada Soomaaliyeed ee runtii hooyada Soomaaliyeed ee gadanaysa laamiga ku gadanaysa dukaanka waxay u baahan tahay amni wiilka Soomaaliyeed iyo gabadha Soomaaliyeed oo iskuulka u baahan yihiin u socdaana waxay u baahan yihiin amni ammaan u baahan yihiin ammaanka lamana siyaasaday karo lamana gorgortana laga magalayo kuwa hadlaaya iyo kuwa ka dambeeya waxaan leenahay amniga hanugu imaanina ammaanka hay'adaha ammaanka mas'uulka ah qof kasta oo isku daya inagoo wada jirnaan qof kasta oo isku daya inuu ammaanka wax u dhiba gacan adag ku qabanaynaa amniga qof siyaasaday kara ma jiro wixii siyaasada meesha in ka jirto iyo carrada in ka jirta la aada laakiin ammaanka caasimadan iyo dadkan iyo dalkan inaad u celidaan inuu inta controlku laba qaraxi soo laaba jiro inuu qarxo ee Maka al-Mukarrama sidii la rabay inuu sidii uu qarxi jirtay inuu qarxada arabtiin idin kama yeelayna gacmo wiilal baa u dhintay kuwa qabuura u jifa amniga taliyii iga horeeyay asagoo ku sugaya amniga caasimadan oo Basra ku dhintay in zero dhimashadii uu ku dhintay in laga soo bilaabo ee 2022 loo celsho ee qaraxa uu soo laabta la rabo in kama yeelayno guryihiinnan ku imaanayna gacmahana waan ka qabanaynaa markaad amniga soo faragashataan markaad amniga siyaasadaysaan amnigu siyaasad maahan goobaha siyaasadda laga hadlo iyo meelahay jiraan aada wargelin muhiima bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed isbitaalka taqoosiga ee Muqdisho waxa uu sameeyay qiimayn ballaaran oo dhammaan adeegyada 30% qiimayn nambarka dhaqaatiirta shaybaarka iyo raajooyinka 50% qiimayn dhammaan qaliinada guud haweenka ENT kaliyaha iyo waliba kaadi mareenka iyo indhaha wuxuu ku yaalaa isbitaalka degmada Yaaqshiid Tawfiiq agaarka miisaanka dhuxusha ka faa'iideysa maanta caafimaadkaagu waa mudnaanteena